Okay, Sumaya wiilka TikTok. Wiilka TikTok maxaa magaca maxaa? Amid ma laha. I don't know. Amid la dhahabi tiray maxaa isku tihiin mise jacayl inaga dhaxay. Indhaday galo fiir. Yes, ani asay jacayl naga dhaxayo. Hakana sawirkiisa ka arki doontaa. Hadda isku soo dhawaatina taa ku jarjaro lafaf ku sii jiro aa ku shiidana cali ku waraabina. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن شافعي كورتي sidoo kale YouTube channel ka daawanayso waa Shafii Kurti fadlan dadka markuu wareyso dhow subscribe na noo saarsi oo noqoto asxaabta hore noogu joogtay waxaan filayaa in aad noo sameey doonto waxaas aad u mahadsantiin maanta iyo muuqaal cusub inta badan askari mashquulsanahay fiidiyoasha soo dhaco badanaa waxa laga yaabaa wax social media wareegaya jiro laakiin yani gadaalka gaar ah macnaha dadka soo daahanahay dabcan arintii la wadawaday liicaato iyo gabadhii xaaskiisa ahayd oo lahayd way isku dhaceen laakiin kasto liicaato uu soo sheegin wax cadeyna macnaha inuu furay in kalaba laakiin ayada ayaa macnaha laftirkeeda wax cad oo toos lagama haayo oo laakiin inay kala tageen ah laakiin laga yaabo inay xurguf dhex jirto oo de family and activities de mana heshiisna maahan mana isdagaalan sida caadiyan wada ognahay marka xurguf kale oo kale reerka dhex jirtana ma laga yaabo inay jirto laakiin waxaan fiirinaynaa video yar oo ay soo duubtay adinkuna kale ay wada daawateen oo reaction la bixinaya ah yani dad ama su'aalo ay ka jawaabaysa ah qof baa wuxuu soo weydiiyay su'aal hebel ka waran amal marka waxay ku jawaabi doonto aan bal isla wada aragnaa dad mahadsantiin. Okay, Sumaya wiilka TikTok. Wiilka TikTok maxaa magaca maxaa? Amid ma laha. I don't know. Amid la dhahabi tiray maxaa dabcan sabab arkiiseen ba magacaaba la weydiiyay qofkii ka bacdi way fahmi weysay dadana waa la tusay kadibna amiin yani surprise oo ku noqo amal ay u soo jawaabto faan marka kale waa qof ay garanayso bar waxa ku sii xigaan dhigeysan isku tihiin mise jacayl inaga dhaxay indhaday galo fiir. Yes, ani asay jacayl naga dhaxayo. Hakana sawirkiisa ka arki والله وأنا لفتي وحواي شكلنا هذا مغلى لها يا فرحي كان قاعد لها ولا حال يا دبهي يقط كي ويرن قاعد لها ما فهمتين كل عاطو عند هي كرنا دلغات بالبسمية كما وسوتشوا ما فعل علن أما يعني أرنتان أو صعطوا ولي بالسوشيال ميديا الله ولا سوى ذلك يسمريها عند بابا إنك صارنا وأنا حقيقة أبقى أنا هين لكن كما وصهالين مركب هذه كرنا ركبت liicaato waxaan dhihi karnaa brada aad ma hasantahay horta taas ayadana waxaan dhihi karnaa hadii xurguf hoos jirto xurguftaas ma ahan inay macnaha ay liicaato ay ku taataabato marka bal asla wada aragna bar wixii ka doontaa. Hadda isku soo dhawaatina taa ku jarjaro lafaf ku sii jiro aa ku shiidana cali ku waraabina. taas dabcan waxaan dhihi karnaa waa digniinta ay u dirayso gabdhaha kale ee ku haysto geegan cusub miskiinkan hawada ku jiro cusub oo soo kordhay marka ma dhihi karno de waxaasaan macnaha soconahay ama waxaasaan macnaha maanta jiro oo lagu de ninkan lagu xadgudbahaya de wiilka cusubna waxaan dhihi karnaa de liicaato hadduu ku furay de walaal de maca salaamo oo de liicaato waxaan dhihi karnaa waka haddii kaleetana de uu soo furina waxaan dhihi karnaa xurguftaan maadaama ay dagaalkan yar oo qoto-qotada waxa xaafada ka dhex jiro sheekadan aan damino de kala ilaab hawshaada hoos u wado faanta walaal marka hadii de ay xurguf ahayn oo adii liicaato kala tagteen hada jacaylkaaga cusub oo soo dhaweynayna mar walbaba marka waxaan dhihi karnaa horta dabcan waxa jiro family badan oo sidaas ugu dhacaan oo de mar walba ayagoo kalsoonidoodu ay yar tahay ama de waxyaabo family caqabadeed ama waxyaabo kale ay isku keeni karaan marka caqabadaas oo kale waxa lagu xaliyaa qaab wada jir ah oo mar walba qofka kale uu ka gacan ka geysan karo in mar walba qofka kale qofka la tashto dabcan familada wada arkaysiin oo dhisan mar walba labada qof familkaas labada qof buu ku dhisan yahay marka maanta liicaato kale wada aragteen wax jawaabaha kama haysin
laakiin waad aragteen xaaskiisu inay soo jawaabtay Sumayo waxyaabahan hadda ay wadado inkastoo anaga hadal cad aan ka hayn oo munaasaba in la furay ama inaan la furinba laakiin waxaan aragnaa in hawl kale ay wado meesha ay waxyaabo noocaas ay adeegsanayso marka waxaan dhihi karnaa haddii kala tagteen calaf uu dhamaada furinkana Ilaahay wuxuu u baneeyay in macnaha lagu kala yani labada qof isfahmi weyso ay ku kala tagaan oo dadkaas ay ku kala badbaadaan marka haddii calafkii uu dhamaado calafkii dhamaaday haddii calafkii dhamaano ay dagaal yar u jirana waxaan dhihi karnaa mar walbo reerkiina ilaalsada oo iska ilaaliya nacabka dhexdiina soo galahay iyo dadka macnaha mar walba ka faa'iideysanayo reerka iyo qoyska taasna oo waanad aan soo marinayo ana ma jecel family ama qoys dhisan inuu dumo ama dubitaankiisa laga xiiseeyo macnaha laga shaqeeyo marka aad mahadsantihiin daawashada fiidiyogan aad daawatay haday tahay markii ugu horeysa fadlan soo dhow sidoo kale hadaad ku caajista fiidiyoga waan ka raali gelinaynaa waxaan kaga tageynaa intaan ku kulmayno fiidiyogan iyo fiidiyo kale cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh.